kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyada idin ku talagashay warbaahinta Warsan Media. barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa haddii ay beedmo sharcigii ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda dalka maalinimadii Khamiistii aynu ku soo gudubnay sharcigaas oo ahaa sharciga lagu xukumayo doorashooyinka dalka iyadoo madaxda qaybaha kala duwan ee siyaasadda dalka ay sharcigaasi ay ka soo horjeesteen. sharcigan marka ugu horeysa hadaan ku bilowno mucaaradka dawladda ka soo horjeeda ayaa inta badan sharcigan ay ku soo horjeesteen waxayna sheegeen in ay markaasi aysan aqbalin sharcigan haatan ay ansixiyeen golaha wasiirada dalka oo loo gudbin doono haddii ay beenmo baarlamaanka sifo markaasi qalanku ugu duugo asagana. balse sharcigan ayaa muran fara badan ka taagan iyadoo maamul goboleedyada Galmudug, Puntland iyo waliba Jubbaland ay ka soo horjeesteen arrinkan sharciga haatan ay saxiixday markaasi xukuumadda dalka laguna qaban doono markaasi sharciga doorashooyinka dalka u yahay oo sharciga haddii sharcigan ay baarlamaankan ansixiyaan uu yahay markaas sharciga kaliya lagu dhaqmi doono haddii ay beenmo sanadka soo socda ee 2019 aan yiraahdeen sanadka soo socda ee 2020 ayaa waxaa loo balansan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal qof ah. balse dadka sharcigan ku soo horjeestay ayaa waxa ay sheegeen in markaasi haddii sharciga ayaa waxa uu qorayaa aan yiraahdeen sharciga ayaa waxa uu qorayaa haddii lacala doorashada ay markaasi suurtagal weyso in la qabto taasina ay ka imaan karto markaasi sida ay markaasi guddiga doorashooyinka ay qeexeen arrinkan qodobka 56 markaasi uu ku jiro qodobkan inta badan muranka badan dhaliyay haddii markaasi cilad farsamo ay dhacdo ama wax ay isdaba maraan oo dhanka doorashooyinka ah madaxda dalka markaasi muddo kordhin ay samaysan karaan waa sida markaasi sharciga ay ku qoran tahay ayna markaasi ay u qeexeen maamul goboleedyada dalka iyo waliba siyaasiyiinta kale ee ku soo horjeeda xukuumadda nabad iyo nolol.